dhalinyarada oo fikirka ay ka aaminsan yihiin suldaanka iyo jabhadiisa ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii kamid ahaa suldaan Bakar cilmiga war cid kasta oo ree awdala oo magaca iyo masabka magaca awdal sheegatay waxa waajib ku ah inay suldaanwaba taageeraan si xaqa adigu aad leedahay loo soo rido si xaqa hooyada dulman loo soo rido waayo haddii uu caara noqday ina adeerkii Faysal Cali Waraabe suldaan Bakar cilmi warna waa ina adeerkayo waa nin tolkaya waa nin ree awdala waa nin masabka iyo magaca awdal ku abtirsada weey waa nin Soomaaliyeed waa nin ree awdala waa nin diiday dulmiga cadaalad darrada xumaanta ay wadaan kooxda asal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa cid kasta oo ka soo horjeesata mabda'a Soomaaliyeed iyada ka shalayn doonta maalmaha kamidana waxay ogaan doontaa xaqa uu suldaan wabar sheegay inuu wax jiran yahay waxaan maqlaynaa xalay toole in odayaal isku sheegayay inay suldaan wabar cambaareynayeen mayna matalaan koofiyad bacle suldaan wabar maanta haddii uu u baxay danta gobolka awdal oo ma garanaysaa duurka u galay maskaxdan duurka anaguna kaga jirnaa oo waanu la jirnaa waxaan u sheegayaa maamulka Soomaaliland waxa jira odayaal matala gobolkan awdal odayaashaas kolley way soo arkeen dawladnimo waxay tahay way soo dhameysteen burbur way soo arkeen dhalinyarta yaryar ee ku nool Soomaaliland ama gobolka awdal waxa ay diyaar u tahay inay xaqooda ku soo ritaan maskaxda iyo muruqa اعتراف haday noqoto anaga Soomaaliland اعتراafka la jecel hadii ay noqoto xaqayagana muruqayagana ku helayna hadii Ilaahay dhaw raggu way ku nool yihiin Hargeysa boorman way ku nool yihiin hadaad gobolka ragga la baxdo ya hadaad la baxdo ma garanaysaa gobolka SNM iyo waxa de gobolka awdal baa noo Axmed Guri baa naga soo jeedo geesinimada looma tilmaamo haduu Ilaahay dhaahdo la ogolaani maayo xaqayaga in lagu tunto ninka Hargeysa joogo ama ilmaha yar Hargeysa joogo ee ku barido ma garanaysaa ku murmi doona aabbahay baa mujaahid ahaa anagu waanu ku soo dhalanay 20 sano baan raadinaynaa ma garanaysaa idinku halka ixtiraaf ka raadis 20 sano anagu 20 sano xaqayga raadinayna haddiina la siin waayo xaqayaga boqolaal iyo ma garanaysaa kumanaan amuud dhigta oo eela dhigta oo cilmi yaqaan ah ya qoriga qaan doona hadii ilaa mahal marka koobaad haddaan ka hadlo arinta suldaan wabar xiisada suldaan wabar ee ka jirta gobolka suldaan wabar oo boqolkiiba boqol waan taageersanahay because of suldaan wabar wuxuu diraya xaqayga oo ah 20 sano ama 30 sano Soomaaliland dhisan tahay xaqaygii baan ku weynay Soomaaliland ma aha jibhad wala leeyahay wadan wala leeyahay laakiin Soomaaliland ay saaqlayn waxa la yiraahdaa saaqlaan baa la Soomaaliland ma aaminsan anagu suldaan wabarna boqolkiiba boqol waan taageeranaa maanku baa ka boqol lama sheego keen laakiin soo xafarta lagu fiiqan garan lahayd wali aan calaamada lagu dhigay waan taageersanahay naga sheekada taageersan qaalin waan ka nahay annagana soo xareeysan ma sha Allah waxaan horta waan ku taageersanay suldaan wabar bixitaanka uga baxay jabhadnimada waayo maxaa anaga jabhadeedo kaliya dib u dhigaya oo qarinaya waad ogeydeen tii carre Faysal Cali Waraabe wuxuu yiri markii lagu yiri maxaa soo qaban weyday oo awoodda Soomaalinimo ku qaban weyday wuxuu ku jawaabay waa in adeerkay anagana beekaasi waa adeerkay waxaan aaminsanahay horta nimaan dagaalimo wax ma helo iyagoo dhibtii ay ka baxeen waxay daarood baan gubaysanaya hadda annaga halkii daarood ka galnay ciise xaggan naga soo weeraray iyagu halkan soo weerareen marka yar iyo waxaan go'aan ku gaadhnay suldaan wabar go'aankiisaan qaadanay haddii aynu nahay dhalinyarta gobolka awdal waxaan had iyo jeer u taaganahay waanu taageeraynaa suldaan wabar sababtoo suldaan wabar waxa uu diriraya xaqa lagu dulmiyay dhalinyarteennii gobolka awdal dhalinyartii aqoonta la soo kacday madaxa la soo kacday marka la caburiyay kartidoodii laga qaaday ayna ka hadli karin buu diriraya marka uu leeyahay Faysal Cali Waraabe aniga kan caara waa in adeerkay dadkana waa in adeerkay annaga kana waa in adeerkay wuxuu u nool yahay xaqayga kale saxane magaalada Boorama